dugsiyada al-irshaad iskuul. bismillaahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mar labaad iyo casharadeenii online-ka maadada soomaaliga fasalka 3aad. ardayda waxaanu ku guda jirnay cutubka 3aad ee buuggeena. casharka aynu maanta qaadan doonaa waa googaalaysi. casharkan waxaanu ku baran doonaa haddii aan la yidhaa googaalaysi. haddii lagu weydiiyo qeexaadda googaalaysi ama waa maxay googaalaysi, waa weydiimo dhaqameed dadan qarsoon macnihii oo ay carruurtu isku maaweeliyaan inta xoolaha laga maalayo caanaha. fasalkii 2aad markaynu maraynay ayaynu si fiican u sharaxnaynu sheegnay oo aynu nidhi ilmaha yar markuu xoolaha raaca miyiga la joogo maalintii o dhan xoolaha eego ee uu habeenkii soo hooyo, inta ilmi yaraa laga soo lisayo geeli ama lodii iyo adhigii si caanaha loogu caddeeyo cuntada, intaasay isku sii maaweeliyaan googaalaysi. ama habeenkii oo kale inta marka fiidkay soo jeedaan ayaa isweydiin jireen googaalaysiyada iyo halxidhaalayaasha. googaalaysigu waxa uu kobciyaa fahanka carruurta. ka bilaabaya googaalaysiga, qofka googaalaysiga bilaabaya waxa uu yidhaahdaa googa. ka falcelinayaana waxa uu yidhaahdaa cigale. kii bilaabayay wuxuu odhanayaa googa, kii doonaya inuu uga falceliyo uga jawaabana wuxuu odhanayaa cigale. la soco ardayo googaalaysiyadan soo socda. googaalaysiga koowaad waxa uu ku odhanayaa sac madow oo seere ku jira. waa sac wuu madow yahay, seerena wuu ku jira. seeraha waxaanu ku dhiganay casharka horaantiisii baynu barannay. waa dhuldaaqsimeed loogu talagalay in xooluhu ka helaan baadka xilliga abaaraha, ama waa dhul daaq badan leh ayaa la ydhahdaa seere. sac madow oo seere ku jira. cigale jawaabtiisu waa injirta. injirtu waa dulin ku dhashaa bini'aadanka, weliba gaar ahaan madaxana gala iyo dharkaba, oo qofku haddiuna si fiican isku nadiifin dulinkan ayaa ku dhasha. 2 googa. xerada iyadu waa wada ul oo ul la qaata male. googaalaysiga waxaa sheegtaa baa lagu yihi xerada iyada waa wada ul oo ul la qaata male. cigale waa geesaha riyaha. xeradii ay riyuhu ku jireen de geeso badan ayaa ka mida oo ka muuqda, laakiin aan ulahaan loo adeegsan karin de marka waa geesaha riyaha. googaalaysiga 3aad. xerada iyadu waa wada god oo god la gala male. xeradayada godod baa ka buuxa oo god la gala male. waa maxay googaalaysigani? cigale waa mareegta maqasha. maqashu waa adhiga yaryar, baraarka waxara ay riyuhu dhalaan iyo naylaha ay dhalaan luxuu marka la isku daro ayaa maqasha la ydhahdaa, intay duleedka xaafadda daaqayaan. markaa xerada dhexdeeda waxaa loogu sameeyaa qoolal xarig dheer oo neef kastaba kurkiisa leeg ayaa loo samaynaya. markaa si laynaa loo xidhayaa, mid kasta kurkaa loo gelinaya. kaasaa la ydhahdaa waa mareeg. googaalaysiga 4aad. meeshaa maroo muuqaala waa. cigale waa raadka qofka ayaa la ydhahda. qofka raadkiisii waad arkaysaa, waxaad leedahay hebel baa halkan maray, laakiin hebelkii la arki maayo, waxaynu aragnay raadkiisii. 5 googa. libaax kucun oo kusoo laba celi. googaalaysigan sheeg. cigale waa daaha aqalka marka marna la galo marna laga soo baxo. buulkeeni yaraaye bul Soomaaliga marka la galo qofku daaha iska rogo uu gelayaa, haddana uu ka soo baxaya. markaasaa la yidhi libaax kuliqoo kusoo laba celi. 6 googa. wax dheer oo aan hal candhadeed gaadhayn. waa wax dheer laakiin hasha candhadeeda ma gaadhayo. cigale waa wadada.
wadada waa socon weligaa way dheerta waa socon laakiin dherer ahaan ku gaari mayso hal candhadeed gaari mayso laakiin masaafo ahaan ayaa ay u dheertahay 7 googa inankaygii gaaraa bidhaan geeli xerge inankaygii gaaraa bidhaan geeli xerge egale waa idanka uunsiga girgiraha yare uunsiga lagu shito weeyaan gogaalaysiga u dambeeya geedkaygii barda weyne birima goyso geedkaygii barda weyne birima goyso egale waa dayaxa cidina gaari maysade geedkaygii barda weyne birima goyso falcelinta gogaalaysigani waa dayax guud ahaan casharka maanta intaas ayuu inoogu dhan yahay haddii alla yiraahdo gogaalaysiyadan qoray wada akhriyi kuwa buuga ku yaalana wada akhriyi kuwa kale aad garanaysidna waa soo baari doontaa waayo gogaalaysigu aad bay u tiro badan yihiin intan waa tusaale uun bay tahay waxaad ka soo shaqayn doontaa haddii alla yiraahdo layliskan baad ka soo shaqayn doontaa ka falceli weydiimahan soo socda weydiinta koowaad waxay ku leedahay waa maxay gogaalaysi waa maxay wuxuu yahay baad sheegi doontaa weydiinta labaad waxay ku leedahay ka falceli gogaalaysiyadan soo socda ba googa ilaa badii kurtin waa maxay gogaalaysigani ta googa waxaan aqalka imid hooyadayoo masaf dhiig leh dhabta ku haysata wuxuu yidhi aqalkii baan soo galay waxaan u soo galay hooyadayoo masaf dhiig leh dhabta ku haysata waa maxay gogaalaysigan jawaabtiisu xabadda u dambaysa googa awr madoobi abaar ku qooq waa maxay falcelinta gogaalaysigan dhammaantiin waad mahadsantihiin tan iyo xiisada xigta waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dugsiyada al irshaad school